بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحعاوة رنتي إشرفة إن بهوينة الصومالي لاند غير صومالي لاند دمانتود أن رنتي دوني هرتود إنا كشيغو إنا نهي مرشح وتاغن مدحوينة كحيجينكا dalka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinka soo socda hadii alla idmo kursiga madaxweyne ku xigeenka ayaan u tartamayaa cidii madaxweyne ku soo baxda ayaan ku xigeen u ahay una shaqeynaya lana shaqeynaya hadii alla idmo insha Allah aniga oo aan kursigaasi u doonayn runtii inaan ama lacag ku helo ama aan wax kale ku helo dana gaara doonaya sida la iga bartay caadadu tahay intaan wadanka ka shaqeynayay inaan wadanka horumarkiisa ka shaqeeyo oo aan wadanka halkii u baahnaa runtii aan wax uga qaban karayna gaaro hadii Ilaahay idmo anigoo leh dhammaan bahweynta reer Soomaaliland geesto joogaanba Zeyl Calaayo inay yihiin dad aan anigu la shaqeeyo runtii wax qabadkayguna uu qayb badan ma qaybo badan oo bulshada reer Soomaaliland uu ka gaaray waxaan islaahay hadii Ilaahay nagu guuleeyo wax weyn oo kale ayaan u qaban karnaa dalka kana qaban karnaa horumarkiisa hadii Ilaahay idmo dadka meesha lagu soo kala baxayna waa bari dhexe waa maxay fariinta u diraysaa xubnaha golaha dhexe ku jira xisbiga kulmiye xubnaha ku jira golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee runtii kala saaraya ragga wada cararaya waxaan ugu baaqayaa runtii inay dalka u doortaan dadka ay isleeyihiin wax way u qaban karaan maanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ma joogo waqtigii la wada cararayay nin walba uu iska soo surwaal iyo suud soo xidhanayay maanta waxa la joogaa waqti wadankeena horumarkiisa runtii lagu talaabsado dadka wax garadka ehelka u ah horumarka inay doortaan maan jeclahay hadii ku waaninayaan hadii lahayd su'aal kale mudane madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayid Ciba ayaa ahaa Soomaaliland intii jirtayna madaxweyne ku-xigeenka gobolka Awdalba ay ka soo jeedeen mas'uuliyiintoodu marka imaga la eego ilaa 5 musharax baa madaxweyne ku-xigeenkii u sharaxan miyaanay noqonaynin codkii gobolka Awdalkii Soomaaliland baa inuu ku dawaqo kursiga ay ka dhex taabto waa run weeyay u muuqato isbarbariyaac iyo istabayaac badan baa jira laakiin waxaan islaahay ragga ku jira golaha dhexe iyaga ay u taala inay qofkii ay u maleynayaan inuu dadka wax u tarayo inay u soo xulaan meesha doona ka soo jeedo aduu maxaad ka duwantay musharaxiinta kale ordaysay xisbiga kulmiye madaxweyne ku tartamay maxaad ka duwantay wadada ay ku doortay waxaan islaahay anigu kullay runtii intaan dalka joogay wax badan ma ka maqnaa laakiin 6 sano u dhameeyay joogay wax badan ma ka qabtay wadanka كهر أنتي بربر كنا رنتي وحكانوها أساسي جامعة عمود جامعة ما توضع كفرنا واتقانان وحي فكرة لا يمد ما أنت هالكي مريسو وحلاقيها بقى أنتي نغاركين كسب حدين جامعة صد مرها يجيتين وحكالون دير هاي ودوني كمان توضع كسعودة وددي وجوه رئيسي ضد كويرستين إسكع عقب سلوك السوية السرد الاستي أنا جاها كجيرمان أنا جوها نكي وهري يعني ورو لابي ما كان يكرنا ما أنت وضع كسعوتا وعركتين مشاريع بدن وكلاون قبل خاصة أوضل كقبتين ويجران ما أنت وحن قعنت كوها رنتي ود برنامج كوجدر وجحوج بدن برع رجابه وضدعه ورنتي ما أنت قول وين وضن كان هو ضل كان هو محاكم الحسب الحاكم كمان عن الله هو كده احترتمي كرتانا قولوا أرنتيو حكومة Soomaaliland ما أنت كردسان أو حسبك كسوجيدا إن إله هاي أمانتي هذا يوم محاكم هذا مهدنقي هذا بإله إلهي كسكو وضاسو هدير ميل ونكسر مريسا مركو حنسلا هاي وحقبض موقدا ولا تهابن كرو أو بالشدو ودوقتها كوضا مرخات هذا ليس نتيرين مرخات لقوا ذي هاي أيان له أنا ورنتي. إذا كذا رسالة ليه ما هندي سكان سوق عيبة مسبت عشان إذا كنت كده. وأنا جاي سوق قاضي. وحيوضانا وحويان درين إن ضل كيجو حقبتي ضد كيجو. أنا لو هدي عن فيديو ما رأي حسن طبعا واحد شفته قال لي ده أنت هنا نقولين وحقبت باتري على يقدرته
golaha dhacaysidaynu wada ognahayna beela weeyaan qaabka iyo xisbiga kulmiye marka ugu tartamayaan oo deegaano beela ay dadka ka wada yimaadeen rajo intee lagbad adigu isleedahay aad ka qabtay inaad ku hesho cod golaha dhexe waxaan isleeyahay haddii meeshaan dhex tago waxa afka qalaad lagu dhahdo landslide waayo wax qabad baan anigu ku taamaya wax qabad baan leeyahay laygu doorto malihi qabiil laygu doorto nin qabiil la meeyahay anigu totally waa beela laga soo jeedaa waa sax beesheedana waxaan leeyahay wax qabadkii aan ka qabtay gobolka ayaan rabaa iyagu inay maxaan ku dhahdaa igu doortaan oo igu tixgeliyaan